السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسنا وعن أخيارة قيمة لأود السلام بين أمير الباجوكتان. نشرنا قرية برنامج كان أنت داون دون تواشر قرية والس قارسيو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إن سلامينا سومالي ذا ميل البيت جوغان سيد عنوان كان كسو قرني وحان قد دقينا لنيرضا أسكرتا هوية وحان قد دقينا إن لو قاضو أما أيالان برنامج كفرماجة إيو فهد ياسين إن دليرada هوية lagu daadgureeyo gobolka Gedo si maaragtay fariisa sahla looga dhigo ama al-shabaab looga gacan geliyo. Dawladda shabaabna gacan saaray leeyihiin sida aad wada ogsoontihiin. Waxaa soo baxaya shalay maanta barnaamij farmaajo iyo ninkii la Fahad Yaasiin inay qorsheeyeen in dhalinyarada askarta ciidanka ee beelaha hawiye lagu daadgureeyo gobolka Gedo. lagu daadgureeyo been loo sheegayo oo la leeyahay waxa laga horgeynaya ama maxayati lagu xoreynaya gobolada Jubbada Hoose Jubbada Dhexe. been waayo waxaas wax ka jir ma ahan. Jubbada Hoose Jubbada Dhexena 3 sano hadii la soo xoreyn waayay hadda maanta lama xoreynayo. doorashada ayaa soo dhow. Marka waxaan leenahay qof walbow $100 qaadanaysa ama $200 farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ku siinayaan. waa qorshe ay degeen Fahad Yaasiin iyo farmaajo iyo safiirka qadar u fadhiya Muqdisho oo la doonayo in maaragtay lagu xasuuqo dhalinyarada hawiye si had bari maaragtay markuu farmaajo uu sameeyo inqilaab siyaasad uu sameeyo uu yiraahdo waa ku guuleystay xilkii si loo waayo qof asaga ka hor imaado oo maaragtay uu xasuuqo shacabka reer Muqdisho ayaa la doonayaa. marka waa khutta ama istaraatiijiyad khatar oo very danger oo la doonayo in lagu xasuuqo dhalinyaradan looga beenta loo sheegay liiri ciidan qaran baatiin ciidan qaran Soomaaliyeed baatiin war ciidan qaranka Soomaaliyeed ciidan qaran Soomaaliyeed oo aan ku jirin majaartaan oo aan ku jirin ogaadeen oo aan ku jirin maxayati marayxaan oo aan ku jirin raxween oo aan ku jirin Soomaali kale maxay tahay oo isaaq aan ku jirin. war hawiye way been lidin sheegin haddii shabaab dhul lagu xoreynayo dhulkiina ayaa shabaab haysta laga soo bilaabo shabeellada hoose shabeellada dhexe ilaa iyo gobolada dhexe banaadir ilaa iyo gobolada dhexe ilaa iyo ceel dheer ilaa iyo maxayati xarar dheer ilaa iyo maxaa la jiri ma aqaane xeebtan mudug ayaa shabaab haysta dhulkiina dhibaato ku haya ilaa Beledweyne ayaa dhibaatadin ku haya. haddii la dagaalamayo shabaab la xoreynayo waa inaad ku beertaan ciidanka maaragtay dadka ka dagaalamayo gobolada dhexe iyo shabeellada hoose ilaa iyo gobolada maxayati hiiraan ka dagaalamayo ilaa Matabaan iyo dhulka ka dagaalamayo waa inaad raacdaan oo shabaab meesha kula dagaalantaan. shabaab oo lagula dagaalamayo dhul marixaan leeyahay Geda waxa weeye wax maskax galay ma ahan. war hawiye oo caqliyeesha askari idin kamid wiil idin kamid ayuu ku dhamanin meel maaragtay wasaga waxba ku lahayn meel uu shaqo ku lahayn dhul uu shaqo ku lahayn yuu u dhamanin. waxaan leenahay marka risaalada naga gaarsiiya mas'uuliyiinta beelaha hawiye odayaashooda dhaqankooda saraakiishooda naga gaarsiiya message-kan. waxa weeye ciidan hawiye loo qaadayo maxayati meesha la yiraahdo Gedo loo qaadayo ilaa iyo beled xaw ilaa Baardheer ilaa dhulkan ilaa iyo dhulka loo qaadayo waxa weeye waxaan u arkaynaa wax maaragtay qalad dalkan waxa lagu dhaqaa oo 4.5 na qabiil walba inuu maaragtay ama waa gobolaysi qabiil kastana inuu maaragtay dhulkiisa xoreysto dhulkiisa asaga maaragtay ka xoreysto argagixisada iyo dadka ku soo duulay ayaa maaragtay nidaamka dawladeed u degsan yahay. laakiin haddii la yiraahdo hal
beela la isticmaalaya meel walba loo isticmaalaya oo ama dabka laga dhiganaya oo shidaalka xaabada dagaal walba laga dhiganaya wax suuragalaya ma ahan wax suurtagal ah ma ahan waa wax looga talagalay in dhalinyaradan lagu maran habaabi dhalinyarada lagu xasuuqo dhalinyaradan lagu gumaado la doonayo way waxaan leenahay markii cid walbo ama wiil ugu jiro maxay tahay waxa looga yaro ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxa looga yaro ciidan qaran Soomaaliyeed ma jiro ciidan beelad baa jira ciidan qaran Soomaaliyeed ma jiro hadii wax la difaacayo magaalada Muqdisho ayaa maaragtay difaac lahaydeen magaalada Muqdisho ayaa maaragtay amnigeeda sugu lahaydeen magaalada Muqdisho ayaa maaragtay maxaabiista iyo shalay fakatay oo dagaal ka dhacay xabsiga xitaa difaac la aadin oo xaafadihii maaragtay habeenkii laga seexan la ayay oo maxayatiyaan aan amni jirin marka waxa way ciidana loo qaaday geda wax suurtagalay ma ahan waa no impossible baleedahay waxa way waa mustaxiil way wax suuragalayo ma ahan waxaan leenahay marka waa in laga dheediyo arrintan waa in arrintan la diida waa in arrintan laga hor imaado arrintan waxay ku soo aaday waqti kala guur ah oo dalkan uu ku jiro maaragtay doorasho ku soo fool leeyahay oo siyaasad maaragtay iyo dagaal sokay wadanka maaragtay uu ku soo fool leeyahay in maaragtay dhalinyaradii loo qaado dhulka oo xaggay ku dagaalamayaan yiraahdo waxaan u arkayaa aniga khiyaana waxaan u arkayaa in maaragtay shirqool lagu shirqoolayo dhalinyaradan beelaha wiil doonay in lagu shirqoolo ciidan qaran ma jiriyo qof walba beel buu ka dhashay qof walba dal buu leeyahay qof walba gobol buu leeyahay waa in qof walba tuuladii uu asaga lahaa iyo degmadii uu lahaa inuu xureysto inuu ku ekaado oo meesha uu ku haado ciidan qaran ku ahaado ayaa la doonaya ma ahan inaad maaragtay dad kalena ay ku seexdaan oo maxay yahay hoteelada Muqdisho ay ku seexdaan oo maxay yahay askar booliis Muqdisho laga dhigay oo maxay yahay adigana laga qaado meesha laga qaado geda lagu geeyo wax suurtagalayo ma ahan mana suurtagal doonto barnaamijka ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin iyo farmaajo ay maaragtay ay go'aansadeen oo maaragtay in dadkan la dhabaatayo dhalinyarada maaragtay la xasuuqo mid aan raali ka noqonayna ma ahan mana ka noqon doono mana ka noqonayno qof walba aqli leh qof walba maaragtay damiir leh oo maanta maaragtay faham leh oo dadnimo ay qeyra ay ku jirto ma ka yeelayo mana ka yeeli doono waxaan ka codsanaynaa dadka saraakiisha sheeganayo oo maxay ahaatay beelaha way ka soo jeedo saraakiisha ciidanka waxa looga yeero ciidanka qaranka sheeganayo waxaan leenahay arrintan ha laga diidiyo arrintan wiilashan yaa loo dirin maaragtay khatartaas dawladdan iyo al-shabaab waa saaxibo meesha berri dagaalka ka soconayo dawladda ayaa soo basaasaysa qaar kamid ah dawladda ayaa gacan saar leh al-shabaab waxa la xasuuqaya anta la go'doomiyo ayaa waxa la rabaa in gaajo iyo kanaaci iyo maaragtay jubbada hoose dhulkaan ilaa iyo jamaam iyo dhulka maaragtay lagu xasuuqo ayaa la doonayaa kanaaci iyo dugaagta iyo maxayati iyo gaajo in iyo bambooyinka iyo miinooyinka ayaa la rabaa in lagu xasuuqo dhalinyarada in lagu xasuuqo waxaan leenahay arrintan waa in laga dheediyaa arrintan laga hor istaaga laga hor taga cid walbana maaragtay waajib ka saaran ay arrintan ka hadasho ka dheedisa ayaa la doonaya arrintan waa arrin khatar ah waa arrin haddii maaragtay gadaal loo fikirin oo aan laga fikirin oo aan laga tashinin khatar weyn maaragtay ku imaan doonto beeshan gaar ahaan beeshan hawiil leeyahay maaragtay mustaqbalkeeda la doonayo in lagu burburiyo oo maxay ahaatay waxgalkeeda dhalinyaradeeda dadkii difaaci lahaa dalka maaragtay dhulka hawiil difaaci lahaa ayaa la doonaya in lagu xasuuqo maxay ahaatay meela ayagu maaragtay waxba u yaalin dhulaan ayagu lahayn in lagu xasuuq ayay doonayaan taas wax suurgalay ma aan shalay waa ogeydeen markii farmaajo daraad uu yiri Jubbaan qabanaya Axmed Madoow baan qabanaya la dagaalamaya wariya Axmed Madoow iyo farmaajo waa ilmadeer waa saaxibo waa isla jiraan waa isla socdaan habeenii maalin isla shaqeeyaan waa isla shaqeystaan waa ilmadeer doorashadana hal meel bay ka wada galayaan waxaan leenahay waxaas ka yeelin shalay ayaa maaragtay dhalinyaradii lagu xasuuqay gediyo dhulka maaragtay oo liiri waxa la qabanayaa jubbada hoose baa la qabanayaa oo shalay maaragtay gaaji iyo kanaaco ku dhameysay kuleysay meeshii leedo jubbada hoose meeshan leedo magaceeda ilaa iyo baar dheer geda lagu xasuuqay lagu dhibaatay maanta waxa la doonayaa in sidii oo kale la yeelo oo doorashada inta la gaarin ka hor ayaa la doonaya in la xasuuqo dhalinyarada la xasuuqo war ciidan qaranna ma jiro ciidan qaran aan ku jirin ogaadeen ciidan qaran aan ku jirin isaaq ciidan qaran Soomaaliyeed aan ku jirin maxayati majarteen ciidan qaran aan ku jirin oo maxayati isaaq oo qabiilo kale ku jirin waxa ay yihiin malahan raxween iyo hawiye waxaan leenahay aqligeena yeesha nin walbow dhulkaaga ayaa xuriyad u baahan dhulkaaga dadkaaga ayaa maaragtay difaac kaaga baahan dadkaaga ayaa maaragtay ururka argagixisada oo al-shabaab la yiraahdo beesh daarood ay soo adeegsadeen oo wada daarood ah oo wada garanayno dhamaantooda oo hal aan u tirin karno
ayay kaaga baahan in dalkaaga laga xoreeyo dhulkaaga laga xoreeyo laga bilaabo shabeellada hoose ilaa iyo maxay baay boqol ilaa iyo hiiraan ilaa iyo maxay gobolada dhexe ayaa dhulkaaga waxaa haysta maaragtay shabaab baa haysta ilaa jubbada hoose shabaab baa haysta oo maxay oo taageero ka helayo dawladda farmaajo taageero ka helayaan ayaa haysta marka iyaga dhulkaaga ayaa kaaga baahan in shabaab laga xoreeyo in maaragtay dhibaatada ay ku hayaan iyo boobka iyo dhacay ku hayaan laga hortago kaagama baahan gede inaad maaragtay wiil hawiyaha inuu ku dhinto baar dheer ilaa iyo gobolada xaaw ilaa iyo maxay dhulka ceelwaaq ilaa dhulka uu ku dhinto wax maanta loo baahan yahay ma ahan Soomaali waa qabiil wali 4.5 bay ku jirtaa ciidan qaran ma lahan yaan been li idin sheegin yaa wiilashiina maaragtay xaabada dagaal aan ayagu shaqo ku lahayn yaan laga dhiganin dagaal siyaasadeed oo la doonayo in maaragtay makaasib siyaasadeed maaragtay lagu gaaro yaan caruurtiina lagu gumaadin hawiyo dhalinyarada ma waxaan leenahay xerooyinka laga qaado oo maxay xerooyinka Turkiga uu leeyahay oo maxay Muqdisho taalo oo ala nafaqada maaragtay lagu qaadayo maxay dawladda Qatar waxaan leenahay kulligoodu waa cadow way Qatarna waa cadow Turkigana waa cadow wixii la socdo maaragtay taageereen waa cadow Ethiopia waa cadow Eritrea waa cadow Kenya waa cadow qof walba wuxuu doonayaa inuu xasuuqo beesh hawiye dhalinyarada hawiye ayuu doonayaa inuu xasuuqo hawiye waxaan leenahay dhul baad leedihiin dhulkiina ka xoreysta waxa weeye dadka maxay argixisada iyo dadka maaragtay dhibaatada ku haya laga xoreeyo cid kale meel kale maxay shaqo kuma liidin dhul kale xoriyadiisa iyo dagaalkiisa waxa maanta idinkaad ku leedihiin ma lahan waxaan leenahay marka ciidan qaran ma jiro waan ku celcelinaynaa dawlad ma jirto dawlad sharciga maaragtay ilaalinaysa ma jirto dawladda way jabtay way burburtay dawladda way dhacday dawladda way fashilantay farmaajo waa fashilmay meesha wuxuu ku joogaa waxa weeye maxay madax adeeg iyo inuu sharciga ku ciyaaro inuu maaragtay dhawaato sameeyo ayuu meeshaas u fadhiimaana farmaajo mar hore ayuu fashilmay dawladdiis way fashilantay dawladdii xasan al khayr way fashilantay baarlamaankana waa fashilmay waxa meesha joogo baarlamaanka iyo waxa ka kulligooda waa kuwa nolosha ka dhacay kuwa tuuga ah kuwa maaragtay ku caanbahay anshaxumada iyo inay dhibaateen ummadda Soomaaliyeed oo ay ka keenaan maaragtay wixii ummadan dhibaato ah maaragtay ay ka taliyaan ayaa meesha jooga marka dalkan dawlad kama jirto hawiyo waxaan ku leenahay dhalinyaradaada la qaadayo gedo loo qaadayo kawaan tooba dhalinyaradiina ka ilaashada dhalinyaradiina xasuuq loo wado ka ilaashada ciidan qaran baan jirin ciidan dawlad Soomaaliyeed baan jirin ciidan maaragtay Soomaali ay u dhantahay madama Soomaaliyeed baan jirin yaan lidin xasuuqin shalayt ayaa lidin ku xasuuqay maxay gedo sanadkii hore markii ciidamada loo qaaday dadka ku dhintay 90% waxay ahayn hawiye ahayn shalay ayaa maaragtay shabeellada hoose markii lidin ku gumaaday lidin ku xasuuqay oo idinka wada aheedin oo wixii yar oo marixaan idin ku jiray diyaarad habeenkii lagu soo qaaday kuwa kale lagu xasuuqay ceel saliini ilaa iyo maxay shalamboodi dhulkan idin ku xasuuqay waa ogtihiin dhibaatada lidin geystay waxaan leenahay isku meel ugu soo jeesta midooba hawiyo waxaan leenahay madamayaasha ciidan madaysan sameeysta oo maxay magac dawladeed ku shaqeeya laakiin gobol kale shaqo kuma lihiidin gobol kale aad shaqo ku leedihiin malahan waxa shaqo ku leedihiin difaaca gobolka Banaadir ilaa iyo shabeellada hoose shabeellada dhexe ilaa iyo gobolada maaragtay gobolada dhexe mudug ilaa iyo Hiiraan gobolada Hiiraan ayaad shaqo ku leedihiin meel kale idinka shaqo ku leedihiin difaaceeda oo shaqo ku leedihiin malahan reer bay dhaban dhulkooda iyaga difaacanaya iyaga xoreysanaya shabaabka xoreynaya reer koonfur galbeed reer maxay Jubbaland iyaga xoreysanaya reer Puntland iyaga waxooda maaragtay ku filan Soomaaliland iyaga saas oo kala cid walba waa inay dhulkeeda ku ekaata dhulkeeda xoreysta hawiyo marka waxaan leenahay fariin ayay iga tahay dhalinyaradiina la qaadayo dadka la qaadayo xerooyinka laga qaadayo beledoogle ilaa iyo maxay xerooyinka xerada maaragtay Turki Soomaaliyeed maxay Turkigu uu leeyahay ilaa iyo xeelana meelaha laga qaadayo waa wiilashiina wax kale ma ahan wiilashii hawiye ayaa la rabaa in lagu xasuuqo meesha wiilashii waa heshiis ay heshiyeen dawladaha cadow ku ah beesha hawiye ku ah kuwa sida maaragtay Ethiopia Kenya ilaa maxay Eritrea Turkiya iyo Qatar maaragtay ku heshiyeen waa cadaawad kulligood waa cadow waa la og yahay cadow soo jireen ah waxaan leenahay marka caqli hal yeesho dhalinyarada hawiye waxaan leenahay ka jooga baan idin leenahay nin walbo waxaan leenahay oo hadii la yiraahdo soo diiwaan gali waa lagu qaadaya waxa lagu wadaa maxay gadaal lagu wadaa ha ka yeelin baan ku leeyahay
هكيالين هبين هكيالين مالنا هكيالين وحلقوا وضع وحسوقاga وحلو صعدا وإن لقوا محياتي سياسات باللقوا ربع إن لقوا فشتو وحال ربع إن ماشى مارت لقوا عنجليو ماشى إن لقوا قضاميو ماشى إن لقوا جميستو ماشى إن ماركتي إثيوبيان إيو محياتي مريحان ولا صعدا إن ماشى كوجو جميستان أيال الربع مركب وحن لنا هدي ربط أدارت إن لقوا أدون صدو حبش أوريسة إيو مريحان كشريعة كسرتين مقدشة شري وعاد إريسنا سيو زياد بريس هدي ربع إذا إذن جميستان وشاكي إذن كذا تال لكن وحي إذن كهرة يعني وحي إذن شيء يا جميسي بقى إذن كهرة إيوم حياتي حسوق وحابد اللي إذن كده جنايو وعرتور اللي إذن كده جنايو أو عيدن كوجهرة اللي إذن كده جنايو حياتي أو شباب كمارة تيمينوي كوده يعني بمبوين كوده يعني على كل حال مسج بيجتها أنتن مسج كان هلا جارسيو خيانة إيو شرقولك فهد ياسين إيو فرماجي إيو قدر إيو تركيا أي وضان إيو إثيوبيا إيو حياتي إريتريا إيو حتى كينيا أي وضان هلا جوان توبو هلا قد دكتونا ده لأن هويو باش هويو هلا قد دكتونا دو نوال بو حاوي كل كاغا إلى شرط كل كاغا أياد ماركتي شرف كل هذا كل كاغا تحت كل متد أياد شرف لا وحبك كام مجرين أو حياتي ميل كلام وحبك كام مجرين عد وحمارتي ماشات كل هذا ملهان dhulkaaga wala laga bilaabo banaadir ila shabeelada dhexe ila iyo hiiraan ila iyo gobolada dhexe ila iyo maxayati mudug way cid meel kale adiga shaqo ku leedahay malahan wiil hawiye ah inuu ku dhinto maanta asagoo dalka dhulkiisa la haysto asagoo maanta urur diimeed oo daarood soo hubeeyeen oo ayaga dabada ka riixayaan ayaga dhaqaale siinayaan iyo dawladii ayaga ay taageerayaan nin dhulkiisa haysto oo maanta loo diiday gurigiisa inuu tago xoolihiisa inuu soo arko waxa weey inuu ku dhinto maxayati gada waa wax maaragtay laga roon